waa kuma qofka ugu taajirsan dunida? waxaan filayaa inay tahay su'aal marka laga jawaabayo loo fiirinayo dhanka hantida qofka uu haysto, laakiin muuqaalkan waxaan kugula wadaagayaa sheekata ka duwan. marka hore, haddii aad ku cusub tahay page-ka, fadlan like saar. haddii aad horey noola joogtayna fadlan muuqaalka sii share garee, aragtidaadana qaybta hoose ee commentiga noogu cabir. muhiimadda ay leedahay inaad qof caawisa wax yar ma aha. inaad qof noloshiisa wax un ka bedeshana waa mid aan la soo koobi karin. sheekadan waxaa laga soo wariyey ninka dunida ugu taajirsan Bill Gates. waxaa la weydiiyey su'aal ahayd, ma jiraa qof adiga ka taajirsan oo dunida ku nool? Mr. Bill Gates ayaa ku jawaabay, haa, waxaa jira qof aniga iga taajirsan. wuxuu kadib ka sheekeeyey qiso isaga iyo dhex martay nin kale. waxay ahayd buu yidhi xilli aanan taajir ahayn oo aanan sidoo kale caan ahayn. waxaan ku sugnaa garoonka New York markii aan arkay nin iibinaya wargeys. waxaan doonayay inaan iibsado wargeyska, balse waxaan ogaaday inaanan haysan lacag igu filan. sidaas darteed waxaan iska daayay inaan iibsado wargeyskii. ninkii ayaana u celiyey, ayuu yidhi Bill Gates. waxaan u sheegay inaanan haysan lacag igu filan oo aan ku iibsado wargeyskan, laakiin ninka wargeyska iibinaya ayaa igu yidhi, si bilaash ayaan kugu siinayaa, waana ku ogolaaday. mar kale, isla sidii 2 ilaa 3 bilood kadib, isla garoonkii New York, anigoo ku sugan oo aan haysan lacag, ayaan u baahday wargeys, ayuu yidhi. isla ninkii iibinaya ayaa mar kale i siiyey wargeyskii. waan diiday. waxaan u sheegay inaan maanta ka qaadan karin. wuxuu igu yidhi, qaado, waxaan ka bixinayaa lacagtiisa faa'iidada aan ka helo wargeysyada kale. waan ka qaatay wargeyskii. 19 sano kadib markii aan noqday caan, dadkuna ay i barteen, waxaan si kadiisa u xasuustay ninkii iibinaya wargeysyada. waxaan bilaabay inaan raadiyo. qiyaastii ku dhawaad 2 bilood markii aan raadinayay waan helay. waxaan weydiiyey, ayuu leeyahay Bill Gates, ma i garanaysaa? wuxuu igu yidhi, haa, waxaad tahay Mr. Bill Gates. waxaan weydiiyey, ayuu leeyahay, ma xasuusataa mar aad si bilaasha igu siisay wargeys? wuxuu yidhi, haa, waan xasuustaa, 2 jeer ayaan ku siiyey. wuxuu leeyahay Bill Gates, waxaan ku iri ninkii, waxaan doonayaa inaan gudo abaalkii aad berigaas ii gashay. wax walba oo aad nolosha doonaysana ii sheeg, waan kuu samaynayaa. ninkii wuxuu ku yidhi, mudane, miyaadan ogayn in caawimaadaada aysan marna la mid noqon doonin taydii? wuxuu yidhi Bill Gates, sabab? wuxuu ku yidhi, waxaan ku caawiyey xilli aan ahaa sabool iibiya wargeysyada, adiguna waxaad doonaysaa inaad i caawiso hadda oo aad tahay nin maalqabeen ah. ninkii ayaa ku yidhi, sidee bay caawimaadaadu ula mid noqonaysaa midaydii? maalintaas ayaan ogaaday, ayuu leeyahay Bill Gates, in ninka wargeyska iibinayay uu aniga iga taajirsan yahay. sababtoo ah ma uusan sugin inuu taajir noqdo si uu qof u caawiyo. dadku waa inay ogaadaan in dadka taajiriinta dhabta ah ay yihiin kuwa qalbiga taajirka ka ah, ee aysan ahayn kuwa lacagta haysta ee suga ilaa ay taajir ka noqdaan si ay dad u caawiyaan. fadlan, haddii aad ku cusub tahay page-kan, waxaan kaa codsanaynaa inaad like saarto, muuqaalkana sii share garayso si u gaaro saaxiibo kale. waad mahadsan tahay. nabadgelyo.